waxaan rabaa inaan la hadlo marka ugu horaysa dumarka xaasaska ah ee markaa la qabo. war dumarka xaasaska ah oo rabbigiin ka cabsada, war wax badan ilaahay ka xishooda, war khayrka iyo wanaagga sameeya, war aswaajta iyo zawjaadka idin qaba ateecoo warkooda yeela. war gabadhu hadday 5 salaadood tukato, war hadday ramadaan ka soonto, war hadday jasadkeeda ilaaliso, war hadday zawjkeeda ateecdo, 8 janno albaabaheeda mid allaala midkay doontay ka gashaa. war marka qaata, war waxa laydiin diray sameeya, war ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishooda, war rabbi ka cabsada subxaanahu wa tacaala. war wax allaala wixii aan macaasi allaahay aswaajta ku ateeca, war ragga ku ateeca wax allaala waxaan diinta alla diiday, war wax allaala waxa rabbi subxaanahu wa tacaala idin amray oo amarkaa ah ku socda oo markaa ku ateeca ragga. taasaan kula dardaarmi lahaa. waxaad in badan ogaataan walaalayaal oo aad ku socotaan inaad fiilisaan xuquuqaadkii waajibaadka laydinku leeyahay. sababta waxay tahay waa wax idinka korkiina saaran. war hadday idin codsadaan oo ay naftiina doonaan hadiidina waa waajib korkiina saarane. war hadday idin codsadaan oo ay naftiina u baahdaan dumarka la qabo ha mancinina oo hadiidina, waayo waa xuquuqaad idin saaran iyo xaq ragga idinku leeyahay.